السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب سود وهذا ميل كسر شوكتان waxaan ka hadli doonaa maanta wax loo yaqaano uterus prolapse haddaa horey noola joogtay waa ku mahadsantahay haddii kale nagu soo biir aad u mahadsantahay uterus prolapse markaan ka hadlayno uterus prolapse wuxuu dhacaa marka ligamentiga ama wax loo yaqaano maartay muscleska support gareeyo uteruska ay noqdaan kuwa wiiga ama awoodoodii ay hoos u dhacdo sidoo kale kuwaas uu ogolaanaya inuu dhaco wax loo yaqaano descending uterus vaginal canal inuu soo galo uterusku ama descending noqdo guud hoos soo dego loona yaqaano maartay uu soo galo vaginal canalka uu soo galo sidoo kale wuxuu leeyahay degree oo maartay lagu cabiro oo degreegaas ayaanta badan la fiiriyo fastimia mise waa wax loo yaqaano maartay secondary fasting waxa weeye yani mile oo dhexdhex yani meeshii saxda position saxda inuu hoos uga soo dego laakiin uusan soo wada degin ama inuu noqdo wax loo yaqaano complete oo uu gudaha soo wada galo oo ama wax loo yaqaano maartay vaginal canalka gudaha soo galo sidoo kale waxaan fiirin doonaa maartay maxaa sababa waxaa sababa inuu dhaco wax loo yaqaano maartay pregnancy and childbirth hooyada haddii maartay xilliga ay uurka leedahay riski ugu jirta inuu dhaco wax loo yaqaano uterus prolapse oo uu hoos soo dego awoodda saaran iyo culayskaas darteed sidoo kale hooyada xilliga ay umulayso ama xilliga ay maartay dhalayso yana riski ugu jirta inuu dhaco wax loo yaqaano wax loo yaqaano uterus prolapse-ga sidoo kale inuu dhaco waxa loo yaqaano weakening of pelvic floor muscle yani floor muscle-ka waa kan ugu muhiimsan ee haya maaragtay uteruska ka qayb qaata inuu positionkiisa saxda joogo kaasina haddii uu noqdo maaragtay muscleskaas ama floor muscle-ka uu noqdo mid maaragtay weakna oo aad yani awoodiisa ay yartahay riski ugu jirta hooyada inuu maaragtay dhaco waxa loo yaqaano uterus prolapse sidoo kale hormone change oo hormone change yani inuu hooyada maaragtay uu dhaco waxa loo yaqaano during the menopause xilliga hooyada ay tahay caado goyska ama hooyada aysan caado helin yana riski ugu jirta hooyadu inuu dhaco waxa loo yaqaano uterus prolapse marka laga hadlayo riski kuwaas waxa ahaayeen wixii sababay laakiin riski haddii la dhaho riski waxa ugu jirta hooyadu wax loo yaqaano maaragtay afar qaybood ama afar shay number 1 hooyada age-ka ama wax loo yaqaano da'da yani risk waxay ugu jirtaa hooyada haddii qof weyn tahay ama maaragtay 40 ayaan dhehe konton iyo 5 meelahaas ay gaadho oo maaragtay ay menopause noqoto ama caadagoys noqoto riski waxay ugu jirtaa inuu dhaco wax loo yaqaano uterus prolapse sidoo kale hooyadu inay tahay mid maxay multiple vaginal birth ama wax loo yaqaano maaragtay hooyadu inay tahay mid dhashooya oo maaragtay 10 ciyaala dhowr iyo 10 inay dhasho oo maaragtay uteruskii maaragtay uu noqdo mid yani mar walba awood maaragtay muscleska iyo ligamentiga haya inay sii daciifaan especially maaragtay wax loo yaqaano floor muscleska so marka waxaa dhici karta oo kale waxa loo yaqaano hooyada inay tahay obesity hooyada maaragtay buuran ama maaragtay xogaa yani aan dhehe yani overweight-ka yani risk waxay ugu jirtaa inuu dhaco waxa loo yaqaano uterus prolapse sidoo kale inuu dhaco chronic constipation hooyada waqti badan hadduu hayo ama caloosheeda ay taagan tahay awoodda iyo maaragtay muscleska ay isticmaalayso riski waxay ugu jirtaa inuu dhaco uterus prolapse so marka waxaa jira calaamado lagu garto oo lagu ogaado magaranaysaa inuu jiro wax loo yaqaano uterus prolapse iyo in kale number 1 horta waxaad ku arkaysaa wax loo yaqaano bulging oo maaragtay vaginal bulging-ka ama maaragtay cervix bulging hooyadu ay dareemayso oo ay dareemayso maaragtay inuu soo galay uteruskii qaybta cervix-ka inuu soo galay oo waxaad dareemaysaa yani in kuus ayay dareemaysaa sidoo kale maaragtay waxaad dareemaysaa hooyada pelvic discomfort hooyada waxaad dareemaysaa wax loo yaqaano wareega inay xanuun ka dareento inay maaragtay culays ka dareento yani qof hool oo kale camala inay noqoto sidoo kale inuu jiro wax loo yaqaano urinary problemka waxaa weeye macay yani wax loo yaqaano kaadi haysti inay soo fuusho wax loo yaqaano maaragtay pressure oo uteruska soo galay awgeed in hooyadu yani ay dareento pressure dhanka kaadida sidoo kale ay yani awoodi weydo inay iska soo nadiifiso ama banaanka iskaga soo wada saarto wax loo yaqaano kaadideedii that time yani waxaan dhihi karnaa yani uterus prolapse waxaa jira complete uterus prolapse sidoo kale inuu jiro wax loo yaqaano bowel issue
ama waxa loo yaqaano maaragtay saxaradu inay iska socoto hooyada oo maaragtay pressurekaas saaran uteruska iyo qaybtan maaragtay saxar mareenka iyo wax dhow isku dhow yihiin maadaama meesha pressure usoo fuulay waxaa dhacda wax loo yaqaano maaragtay wax loo yaqaan fecal incompetence ama yani inay istaagi weydo saxaradii oo kale sidoo kale waxaan fiirin doonaa marka waxaan kasoo hadalnay definitionkiisa waxa sababa riskiga hooyada ugu jirto waxaan iyo calaamadaha lagu gartaba soo marka waxaan eegaynaa qaabka loo daaweeyo ama loo qiimeeyo ama waxa loo yaqaano maaragtay aan isla eegi doonaa number 1 markaan ka hadalno diagnosis aan eegno kow hooyada yani waxaad weydiin doontaa yani si aad ku ogaatid waxan ama proof ku samaysid medical history oo waxa weydiinaysaa hooyada inuu jiro wax loo yaqaano ama discussion kala sameynaysaa calaamadaha ay leedahay iyo waxyaabaha kasoo ay sheegayso inuu yani ay iyadu isku aragtay sidoo kale inay kuu sheegto riskiga waxyaabaha ugu jirto oo maaragtay riskiga keenaya yani xanuunkaas inuu dhici karo inaad weydiisid sidoo kale physical examinationka markaad fiirinaysid ama physical examination hooyada ku sameynaysid waa inaa yani u dirtaa waxa ugu muhiimsan laba shay ultrasound iyo MRA labadaas inaa u dirtid so marka waxaa jira maaragtay treatmentigiisa ama maaragtay qaabka loo daaweeyo isagana insha Allah hadii la yiraahdo mar kale ayaan ka soo hadli doonaa intaasaan kusoo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.